سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد والله خطبتنا waxay ku saabsan tahay tawbada waa mowduuc aad u muhiim ah markaynu xoogaa joognaba inaynu isugu celino casharka ah waayo maanta waynu ogsoonahay dambigu siduu fara badan yahay aakhiru zamaanka iyo waliba waqtiga ay dadku fitnaysan yihiin fitnada maantana way fara badanta ama ha ogaada ama yuu ogaanine qofku waxa uu ku raran yahay oo inuu reebo u baahan yahay dunuubaad u badan marka uu gaf ku dhacana culimadu waxay isku waafaqsan yihiin inay faral tahay inuu ilaahay u toobad keeno subxaanahu wa tacaala muhiimada iyo mansilada iyo miisaanka ay leedahay toobaddu waxa caddaynaya ilaahay baa qur-aanka kariimka ah waxa uu ku soo celceliyey 780 meelood bilafdi tawbati washtiqaaqaati kolba si loo dhigaba tawbada iyo dhiirigelinteeda iyo ammaanteeda 780 meelood baa ilaahay qur-aanka ka warramay mar ficli buu ku sheegayaa siiqatul ficli marna siiqatul ism qur-aanka kariimka ah tawbada aad buu inoogu dhiirigeliyey wakadalik rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam aad buu inoogu dhiirigelinayaa ilaahay maruu yeedh muudh soo dhigay rasuulku fariin soo faraya sala allahu calayhi wasalam bushaara aayaddu xambaarsanta waa aayadaha ugu rajo badan qur-aanka qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica addoommahayga waxaad ku tidhaahdaa nebi maxamedow waxaad gaadhsiisaa buu lahay addoommahayga oo aad u sheegtaa kuwa naftooda weliba ku xadgudbay ha quusanina ilaahay dembigoo dhan uu dhaafaa u toobadkeena oo u soo noqda amarna ilaahay wuu inagu siiyo wuxuu ihi watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun dadku liibaan bay wada jecelyiina si aa u liibaantaan ha kala hadhina gaal iyo islaam dhammaantiin ilaahay wada toobadkeena jamiican mar kale rabbi waxa uu soo dhigay qofka inuu raja ku hadhan tahay inaanu toobadda ilaawin afalaa yatuubuuna ila allah wayastakfiruuna wallahu gafuuru raxiim maxay u xishoon waayeen maxay ilaahay ugu soo noqon waayeen dembi dhaaf u weydiisan waayeen ila ilaahay naxariistiisu way badanta xataa alkufaar gaalada dembiga u weyn ku jira gaalnimada ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu yeedhayaa uguna bushaaraynaya inuu dembigaasi noocyadiisa kala duwan ka dhaafi doono fain taabuu waaqaamuu salaa waaatow zakaa fa ikhwaanukum fi ddiin kuwaa maanta colka tihiina xabaddu idinka dhex taagantahe dagaalamaysaane cadowga ilaahay ah hadday saddexdaa arrimood isku daraan waa walaalihiinnii diinta buu lahay inay toobad keenaan oo salaada ogaan oo sakadana ay bixiyaan intaa haddii laga helo idinkunba idin barbar taagay inay idinla mid yihiin godobtooda u weyni waa gaalnimada ha ka toobad keeneen towbaddana waxaa ilaahay uu tilmaamayaa inay toobad wanaagsan oo caafimaad qabta noqoto yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi towbatan nasuuxa towbadda nasuuxa markay culimmadu fasirayeen gaar ahaan cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu oo khulafaa uraashidiin ka mid ah waxa uu tilmaamaya inay shuruud yeelato oo shuruuddeeda ay ka mid tahay qofku inuu dembiga iska daayo oo aanu ku noqoninoo go-aan ay ka tahay ka dhab tahay axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddaynu usoo noqonno nebiyullaahi moxamed sayidu alawaliina waalaakhiriin xadiidkii bukhaari min xadiidi abi hurayra dadka wuxuu ku leeyahay dad yahow ilaahay u toobad keena oo gefkaa gasheen iyo dunuubtiinna ka soo noqda oo ha quusanina anigu maalintii waxaan ilaahay u toobad keenaa in ka badan 70 jeer riwaayada muslimna waxay sheegaysaa ilaahay waxaan u toobad keenaa maalintii walba 100 jeer wardigiisa ku jirtay nabiga calayhi salaatu wasalaam astaghfirullaha wa atuubu ilayhi astaghfirullaha wa atuubu ilayhi 100 jeer marka galinka hore iyo galinka dambe labadaba wardigeena aynu ku darayna istighfaarta iyo toobadda
innagoo addoommo yaryara oo inagu ilaahay u baahan haddana isagu towbadaynu usoo noqonno wuu ku farxayaa wuxuu og yahay inaynu waafaqnay halkay ka macayn ujeeddadiina asiibnay buu garanayaa rabbi uu ogyahay subxaana wa tacaala amarkiisiina aynu qaadanay shaydaanna aynu ka badbaadnay xadiidka aynu khudbadda ku jira wuxuu nabigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam ilaahay towbadda addoonka aada buu ugu farxaa inta uu midkiin farxaya in ka badan waa qofkii oo gaadiidkiisii lumay meel cidla-a kaga lumay iyadoo sahaydii ka saaran tahay oo si kadiis ahoo lama filaana uun ku helay farxadda uu farxayo ee uu ku farxayo gaadiidkaa uu helay iyo meeshaa qarfada ah ee uu ka badbaaday farxadda ilaahay baa ka badan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaynu u baahanay walaalayaal fursado way badan yihiin fursadda inaynu ka faa'iidaysanno oo qofkana haddii fursaddu ay dhaafto dhinaca diinta iyo dhinaca dunyada horumarkuu ka lumaa insaanku horumarka wuxuu ku helaa inuu fursadaha iyo jaaniska ka faa'iidaysto xadiid saxiix muslim ku sugan oo uu warinaya abi muusa alashcari nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ina allaha yabsut yadahu bileyli liyatuuba musii'u nnahaar wayabsutu yadahu binnahaari liyatuuba musii'u lleyl xataa tadluca ashamsu min magribiha ilaahay gacantiisuu fidinayaa si uu u toobad keeno qofkii maalintii habeenkii uu fidinayaa si uu u toobad keeno qofkii maanta dembaabay oo fursadda habeenkii uga faa'iidaysto maalintiina gacantiisuu fidinayaa uu kaga aqbalaya addoomaha toobadda si uu u toobad keeno qofkii xalay tag dembaabay ilaa inta ay qoraxdu ka soo baxayso halkay ka dhacdo fursaddaasi way jirtaa marka nolosha in laga faa'iidaysto ayaa nebigu inagu gubaabinaya calayhi salaatu wasalaam waxaynu u baahannahay inaynaan isqancinin isla weynaanin cibaadadeenna isku halaynin laakiin ilaahay aynu ka xishoonno subxaana wa tacaala addoonku markuu ilaahay caasiyayo hadduu ilaahay ka xishoodo rajadiisu way badan tahay waanu toobad keeni karaa laakiin haddii aanu ilaahay ka xishoonaynin oo cibaadadiisu ay la weyn tahay towbadduna way ku adagtay ninbaa wuxuu u yimi saahidkii weynaa ee la odhan jiray ibraahim ibnu adham taariikhdiisa xagga dambe insha allah aynu ku xusi waxa uhi waxaad i bartaa bal sida loo toobad keeno oo adigan oo cibaadadaadi iyo suhdigaagu way badayn markaa wuxuu ihi waxaan kuu horraysiin laha haddaad doonayso inaad ilaahay caasido niyo waxaad raadsataa dhul aan kan ilaahay ahayn waa xageen ka soo helayaa buudi dhulka ilaahay baa loo yidhi ina alarda lilaah yuuriuhaa man yashaau min cibaadi haddaba haddaad dhulkii ilaahay u aqoonsantahay ha ku caasiyna ka daa buuhi macsiyada ilaan cidi waxay leedahay laguma caasiye mar kale waxaan kuu sheegayaa haddii aad doonayso inaad macsiyo iyo gaf samayso arsaaqadda ilaahay ha cunin ilaahay baa ku biiliyo ku raashimay arsaaqadiisa u daa oo ilaahay unbaa arsaaqadda bixiye sidaan u dayn karaa buuli sababka ilahay yidhi ina allaha huwa arasaaq dulquwati almatiin te haddaba ka xishood buuhi ilaahay ku arsaaqaya oo caasiin mar saddexaad waxaan kuu sheegi lahaa buuhi haddii aad doonayso inaad ilaahay caasido waxaad tagtaa meel aanu ku arkayn iska qariyo ka libidh وسان وقلب يا أبو سوك إلى هاي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قفك أوركيسي أوجدي سبي إلى هاي باركيا إيشنا وحي قرنا يسأل لك هذا بقول هدوك أركيا كحشود مرشنات بهدنا كعليا وحول هداد دون يسين هذه لها عاصرة مركو ملك كوي ماده فضلا نير كاذبه هيقول دقنا يجي تشوش جريدة وسيدان كاجت سيدان أوران كرابو سوك إلى هاي فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ساعات ما تبلع عن تدك ساعاتنا ما هو مريان حق جريدة وقت عيما بوي هذا هدي أنا شو هينين بورينات هكان كرتبا وأنا دائما لقيس دافين كريني تيلاها كحشودها عاسين مركز سببها مركز ساو فكرتوها وحياها كوكيني كرابول نادي الله وتوبتك أنت سبحانه وتعالى والله الله يلوح إلى هذا التوبة على مدى موجنا يقفكم مركز وتوبتك أنا إلا جاء أقبلي على مدها وحكم إذا أن ينقطع عن أصحاب السوء تتكيح حماية ولا صاحب كاين وبدله قابتي يا صاحب كيسين وبدله تصح على مدى تاي إنه تناسلي أدول لكن هالكي هرا كمي سيادتك حماية ولا الصعود qofkaasi calaamadaas waxay sheegaysaa in aanu toobad keenin
waxaa ka mid a bay leeyihin culimmadu dembigii hore inuu iska daayo oo jawigii uu bedelo ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim ilaahay wuxuu dembiga ka dhaafayaa markaad noloshaadii hore bedesho waxaa saddexaad oo ka mid a calaamadaha an yakuuna mustacidan lilmowt in geerida uu diyaaru yahay oo xusuusta geeridu qofkii ay ku badantay alla macaasiya uu ka xishoodaa qofka geerida xusuusan waxaa afraad oo calaamad u ah inuu carabkiisa haysto cadaawadda walaalahana yareeyo oo qofka haddii cadaawaddu ay ka buuxdo oo cidhiidhigu uu ku badan yahay oo isciilkaambiyayo wax badan buu xambaarsan yahay oo dunuuba mana toobadkeenin towbaddu faa'iidooyin bay leedahay aan ilaahay dan u ahayn ee innaga dan inoo ah oo aynu wakhti walba u baahannahay waxaa ka mid a faa'iidooyinkaa waa sababta ilaahay uu inagu jeclaado innaguna waxaynu u noolnahay nu ordaynaa inuu ilaahayna jeclaado subxaanahu wa tacaala ina allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu lmutadahiriin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa jidhkoodana nadiifiya qalbigoodana towbadda ku nadiifiya waa sababta aynu kaga bixi karno liiska daalimiinta haddii lagu idhaahdo ma waxaad ku biiraysaa liiska dembiilayaasha mise liiska dadka madaxa bannaan qof waliba wuxuu leeyahay dee qof aan dembiilahayn inay noqdaan jecelaha waman lam yatub fa ulaa'ika hum aldaalimuun dadka towbadda diidaa daalimiin weeye ogaada buu ilaahay dembiilo weyni waa ka aan ilaahay usoo noqonayn u toobadkeenin dembiga aynu la roorayno waxaynu ku reebi karnaa inaynu ilaahay u toobadkeenno subxaana wa tacaala waa faa'iidooyinka towbadda waa sababun limaxwi dunuub attaa'ibu min adanbi kaman laa danba lah rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam qofku haddii uu ilaahay si dhaba ugu toobadkeeno wuxuu ka dhigan yahay qof aan dembiba lahaynba waa sabab litabdiili alxasanaat litabdiili sayi'aati ilaa xasanaat waa sabab keeni karta haddaad ilaahay u toobad keento wixii dembi ahaabaa ilaahay intuu kaa dhaafo halkoodii xasanaad kuu dhigaya fadliga ilaahay ballaadhnaantiisa ilaa man taaba wa aamana wa camila saalixan fa ulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat wa kaana allahu gafuuran raxiima qofka ilaahay u toobad keena ee ilaahay rumeeya ee camal wanaagsan la yimaada intaa isku hagaajiya anna waxaan diyaar u lahay baa ilaahay u yidhi wax alla wuxuu xumaan sameeyeen xasanaad ugu bedelo yaa laga helaa ilaahay subxaana wa tacaala waa sababun lirisq arsaaqadaynu ordayno aynu suxulduubayno aynu bacadka iyo barafka u marayno sababahay ku fududaato waxaa ka mid ah towbadda iyo ilaahay unu dembi dhaaf weydiisano faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana gafaara yursil الsamaaءa calaykum midraara wayumdidkum biamwaali wabaniin wayajcal lakum jannaati wayajcal lakum anhaara dad iyo dunyaba iyo beero iyo biyo intuba waxay ku iman karaan inay dadka towbadoodu badan tahay istikfaartooda ay ictiraaf bixiyaan ay gartaan inay dembiilayaal yihiin wa sababun lilxayaati alhaadi'a nolosha maanta degana la doondoonayo ilaahay oo dembi dhaafkiisa inaad dembi dhaaf in dembiga kaa dhaafo aada weydiisatood istikfaarta iyo towbadda badisaa lagu helaa sacaadada nolosha wa an istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayh yumatickum mataacan xasana ilaa ajalin musamaa ilaahay oo u toobad keentaan mataacan xasanan baa lagu helayaa towbad wanaagsan waxaynu raaci lahayn si aynu bal tusaale wanaagsan inoogu noqoto qur-aanka iyo waxyiguna uu inagu dhiirigeliyay xadiidkuba qisasu taa'ibiin baa in badan laynooga warramaa dadkii toobad keenayay qisadooda waxaa laynoogu sheegayaa dadkaa kama wanaagsanin ee ku dayo iyagoo dembigoodu uu yaryahay ama rusushii ilaahaya ama saalixiintii ama saxaabadii ayay ilaahay u toobad keenayeen adiguna xaggaa taaganta qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa nebigii bani aadamkuwa ay ka farcameen nebi aadam inuu gaf ku dhaco amarkii ilaahay uu khilaafay wacasaa aadamu rabbahu faqawa inuu gaf ku dhaco meeshii la geedkii la yidhaha cunin buu cunay laakiin wuxuu ku xalliyay toobadoo ilaahay uu waafajiyey isagiiyo xaawa rabbanaa dalamna anfusana wain lam takfir lanaa watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin arrinkoodii wuxuu ku dhammaado kusoo gebagabaysay inay ilaahay uga toobad keeneen gefka nebi ambiyada ka midoo dunnuun ama saaxib alxuud ama yuunus magacyadaa la yidhaahdo isaguna amar la-aan buu ummaddiisii ka anbabaxay iyadoonu ilaahay fasixin
ayuu dhaqaajiyey arrintaasi mukhaalafay noqotay oo gef bay noqotay bahal baa liqay weyn oo badda ku jiro oo xuudka la yidhaha ama nibiriga calooshiisa dhexdiisuu ka qayliyu qayladoon ilaahay u dirtay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin halkaa markuu ku toobad keenay bannaankaa la soo dhigay ilaahay baana dib u habayn ku sameeyey haddii kale halkaasuu ku waari lahaa nebi nuux calayhi salaam isaguna su-aaluu ilaahay ku celceliyay xagga ehelkiisa iyo ubadkiisa ku saabsan markii inankiisa biyuhu ay qaadeen markii ilaahay uu sheegay arrintaasi inay gaf tahayna wuxuu ihi qaala rabbi innii acuudu bika an asalaka maa laysa lii bihi cilm wailaa takfir lii watarxamnii akun min alkhaasiriin ilaahayow haddaanad iga dhaaf dee waan khasaari doonaaye adaan kuu soo noqday iga dhaaf nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ama nebi muuse aan ka horraysiino nin buu dilayba daalim ah oo reer fircoona oo rarayay nin kaleo reer banu israa'iil oo dhibayay laakiin dilka amar umu haysanin macnaa fasax umuu haysanin oo ilaahay uma fasaxin subxaana wa tacaala inkastuu kani dil mutaystay oo daalib u ahaa arrintaa uu ka toobad keenay qaala rabbi innii dalamtu nafsii fakfir lii fagafara lah innahu huwa algafuuru raxiim ilaahay waan gafay dhaaf mar haddaanan dilba ha mutaystay haddana fasaxaaga aanan ku dilin ninkaa reer fircoon taasi waxay ahayd gef baa ahayde ilaahay uu iga dhaaf ilaahayna waa ka dhaafay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam khaatamu alambiyaai waalmursaliin oo ilaahay uhi liyakfira laka allaahu maa taqadama min denbika wamaa ta'ahar dembigii hore iyo kii dambeba waa lagaa dhaafay 100 jeer buu ku wardiyayaa maalintii inuu ilaahay dembiga ka dhaafo fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba towbadaasuu kusoo gebagabeeyey iyo istikfaarta rasuulku sala allahu calayhi wasalam cimrigiisi taa ku celceli baa leeyihi xagga saxaabadiisa markaynu kacno waa miduu ku dayan karo qofka maanta caasiga ama sina ku dhacaya ama gef iyo xumaan waxaynu usoo qaadan karnaa qofkaasi inaanu quusanina uu ku daydo saxaabadiisii rasuulka sala allahu calayhi wasalam gefkaa ku dhacay iyo siduu ilaahay dembiga uga dhaafay sinadu maanta way badan tahay dadkii waa in badan oo ka midii waabay xalaashadeen qaar ka midii diin la-aanta ku dhacday waxaad mooddaa inaanay garanaynba xukunkeeda iyo ciqaabteeda asxaabii waxaa jiray maacis la odhan jiray radia allaahu canh sinuu ku dhacay laakiin iimaankiisii wuxuu sii waaya inuu qarsado iska sii joogo nebigu u tegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy dahirnii yaa rasuula allah rasuul allah inadiif nebigu wuxuu hi ilaahay u toobadkeenoo muu sii wadwadinoo muu baadhbaadhin mar labaad buu ku celiyey mar saddexaad buu ku celiyey mar afraadkii buuhi maxaan kaa nadiifiyaa dee waan sinaystay buuhi sinada ma taqaana war miyuu cabay miyuu sillan yahay intaa uu warwareysinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam bar si uga dhaqaajiyo uun markii dambuu ku adkaystay uhi intaa midna ma jira sidaasaan u sinaysto nebigu wuxuu faray in dhagax lagu dilo kolkuu isa soo taagay ninka khaalid ibnu waliid ama aan idhaahday asxaabta qaarkood haddii ay ninkaa isaga nebiga wax ka weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam ama shakiba galay rasuulku waxa uu ninkaa ku hambaliyay u ihi laqad taaba towbatan low qusimat bayna ummatin lawasicat ninkaasi wuxuu toobad keenay towbad weyn oo haddii loo qaybin lahaa ummad dhan u qaybsami lahayd waayo naftiisiibuu quudhay oo iimaan baa waday oo dee waa kaa naftiisii ilaahay daraaddii u bixiyey xadiidkaa muslim baa wariyay waa saxiix qofku hadduu macsiyo galo sidaa uu nebiguba marka hore ku abaabulay waa inuu isqariyaa ilaahay u noqdaa haddii uu dee dembigaa ilaahay ka galay subxaana wa tacaala waa inuu isqariyaa ilaahay unu toobad keenaa laakiin maadaama xeer ciqaabeedkii laga fuliyey iyo xaddii halkaasi arrinkiisu uu gaadhay waxaa sidoo kale towbatulghaamidiya gabadh waxayd iyaduna sinaysatoo nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam waxay leedahay ciqaabtii sinada iga fuli markuu nebigu dee u sheegay in ilaahay u toobad keentana waxay tidhi waxaad doonaysaa sidii ninkii maacis oo kale inaad celiso wallaahi urbaa baan leeyahy markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi bal orod soo dhal intaa jaanis waxaa loo siinaya hadday ka noqoto xataa waa la iska daynaya iyadoo ilmihii yaraa sida oo soo dhashay bay nebiga u keento harqad ku sida wuxuu uhi bal orod oo soo jaqsii 2 sano markay soo jaqsisay iyo siyaada ayay ilmihii yaraa ay daadahaynayso oo xabadkii mise gacanta ku wata ayay keentay weli may tanaasulin dee ninbuu ilmihii yaraana u dhibeeyadiina waa tii la ciqaabay xeer ciqaabeedkii laga fuliyey khaalid ibnu waliid ayaa markaa gabadhii wax ka sheegay
rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ka dhiciyo wuxu uhi laqad taabat towbatan low taabahaa saaxibu maksin lagufira lah uu dhaartay nebigu waladii nafsii biyadi ilaaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay waxay toobad keentay towbadoo hadduu toobad keeni lahaa cashuur qaaduhu cashuurtii halka lala maree cashuur qaaduhu haddii uu toobad keeni lahaa waa laga dembi dhaafi lahaa kaasaa dadka ugu dembi weyn ka mid oo xadiidkaana muslim baa wariya waa saxiix dadka xoolaha ummadda dhacaya ama xalaashanaya waxaanay lahayn ama ku xeel dheeraanaya fudayl ibnu cayaad ha ku daydaan raximahullah salafkiibuu ka mid ahaa culimadii waa imaamu shaafici iyo thawri iyo waxa uu ahaa sheekhoodii buu ahaa laakiin markii hore muxuu ahaa taariikhdiisa sida kutubahoo dhan ku sugan marka tarjamadiisa laga warramayo wakhtigii hore wuxuu ahaa nin had iyo jeer dadka dhibuu ka mid ahaa wakhtigu da-da yaraa habeenada ka mid a isagoo u dhukusaya magaalada dhexdeeda gabadh oo markaa ama la ballansanaa ama wuxuunuu ku samayn lahaa ayaa wuxuu maqlay dadkii qur-aanka kaloo akhriyi jiray mid ka mid oo akhriyay alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaahi wamaa nazala min alxaq aayaddaasoo macnaheeda uu garanayo miyaanay dadkii mu'miniintaha qalbigoodii u dhowaanin inuu jilco oo dee waxyigu uu saameeyo maya taasi waa jirtaa buui aayaddaas way ku dhibiqday macnaha inaan kelmadda wanaagsan la yaraysan karin bay qisaskani tilmaamayaan iyo wacdiga qofkana aan laga quusanin ee khayr uu ku dambayn karo qofkuna aanu quusanin isagoo dhinacaa u dhaqaaqay ayaa haddana wuxuu dhegaystay qolo magaalada kasii anbabaxayso safarahoo waxay leeyihin hore aan u guro galno mid kalea wuxuu leeyahy waa ninkii fudayl ayaa kollay jidka ku jire iyo waxaynu haynaba inaga qaadine waagu haynoo baryo fartu taaga wuxu uhi ilaahayow ma ummadaadiibaa sidaa iga baqaysa ma aayaadkaagii baan maqlayaa si dhaba buu toobad keenay markii dambena dee wuxuu ka mid ahaa sida aynu sheegayno culimadii aclaamta ahaa cilmiga xadiidka iyo fiqigaba caanka ku hadee imaamu shaafici iyo sufyaan thawri asxaab almadaahib almatbuuca qolihii madhabaha qoray buu dee sheekhu ahaa waxaa loo yaqaanay caabid lxaramayn ballan buu ku qaaday waqti cimriga inta ii hadhay inaan labada xaram un ka ag dhowaada sidaasaa markaa noloshiisa intii ka dambeysay wakhtigaa uu ku qaato toobadii ilaahay uga aqbalay subxaana wa tacaala rajadiisiina ay u weynaato fudayl ibnu cayaad xidhiidhka ilaahay uu la yeeshay wuxuu noqday markii dambe mid taariikhdu ay ka markhaati kacdo khayr weyn loo rajaynayo wuxuu odhan jiray qofka ilaahay ka cabsada cidina ma dhibto qofka cid kale ka cabsada cidina ma anfacdo wuxuu odhan jiro maqaaladihiisii dhaxalgalkaa ka mid ahaa kolba dembigu inta agtaada uu ka yahay cagsigeedunbuu ilaahayna agtiisa ka yahay hadduu dembigu haba yaraadee agtaada ka yar yahay ilaahay agtiisa uu ku weyn yahay saqiire hadduu yahay gabadhaad eegtay hadduu yahay oo adiga uu kula fududiya ilaahay wuu la weyn yahay haddii uu dembigu agtaada weyn yahay ilaahay agtiisa wuu yar yahay ictiraafka iyo aragtidaada kolba siday dembiga ka tahayba ilaahay kugula dhaqmaya subxaana wa tacaala markan toobadii uu toobad keenay halkaasay gaadhsiisay imaamka raximahullah waxaa sidoo kale isaguna ahaa caabidkii weynaa ee la odhan jiray ibraahim ibnu adham maqaaladiisii waa inagii ninkii siduu u wacdiyay waa inagii soo maraynay wakhtiyada ka mid a ayaa nin saaxiibkiiah waa markii dambe u dee cibaadada badnaa zaahidka ah ayaa weydiiya wuxuu ihi bal waxaad iga warantaa waxaan maqlay inaad berigii hore sidan ahaan jirine bal waktigaa toobad keentay iga war maad iga daysid buui war wax kale weydii taa waan soo dhaafae mar labaad buu ku celiyo mar saddexaad buu ku celiyo tiibuu uga warramay wuxu uhi horta aabbahay nin xoolole buu ahaa reer afghanistan baanu ahayn nin xoolo badan buu ahaa maalin maalmaha ka mida anigoo iska ciyaaraya oo farda eryanaya xarago badan oo bakayle iyo ugaadh iyo xeryanayo kibirkii halkaa ila galay ayaa haatuf baa ii qayliyey dee ilaahay baa hanuuninayay subxaana wa tacaala qofba ilaahay kelmadda xaqa cidunbuu ugu soo dhiibaa marka waxaa la leeyahay ibraahimow lam tukhlaq lihaada walam tu'mar bihaada hadda sidaana laguma abuurin sidaana laguma amrin waktigaaga saaad ku qaadanayso mar labaad mar saddexaad ayaan maqlay buua waxaan gartay in la ii jeedo alaabtiisii qaaliga ahayd ninkii adhiga raacayuu siiyey ninka adhiga raacayayna dharkiisiibuu ka qaatay waa kii sidii ku anbabaxay ee culimada ku biiray zuhaadda ah ee caanka ama qaalaadahoodii dhaxalgalka ay noqdeen culamaau taariikh aada kutubahooda ka heli karayso
waxaa lagu yidhi markii dambena ibraahimow waa berigu zaahidka noqdo cibaadada badnaa dee hilibkii uu qaaliyoobay magaalada dee liqliqiisa iska yareeya buuhi jabiye anugu maba cuno kaas idinkaa badsanaya marka hilibka iibsigiisa yaraysaan buu iska jabi doonaa yaraystan buu mar kale waxaa la weydiiyey dadkii in waad iskaga dhex baxdayoo saaxiibtinimadoodii waad iska daysay ka war wallaahi waxaan u daayay buuhi dadkii waa 3 nooc qofka iga xoola yar ama iga adduunyo yari wuu xaasidayaa ka nabadgeli maayo qofkaanu isku mustawanahay aanu isla egnahayna wuu ila tartamaya adduunyo igu lugoynaya ka iga xoolo badanina wuu isu kay kibrinayaayoo anuu cuqdadigu abuuraya waxaan weheshanayaa la saaxiibay buuraan ka agdhowahay ilaah subxaanahu wa tacaala aanan ciil iyo cidhiidhi toona ku qabin weheshigiisa subxaanahu wa tacaala walaa astawxish oo aanan ku cidloonayn raggii maqaaladahaas lahaa buu ahaa noloshu iyo cibaadaduna macaan iyo dhadhan ay u samaysay wuxuu lahaa haddii ay ogaan lahaayeen nimanka madaxda ee kaambaynka kursiga ugu jira iyo maalqabeenka adduunyada u suxulduubaya bimaa naxnu fiih waxaanu haysanay ee macaanka cibaadada hadday garan lahaayeen najaaladuuna bisuyuuf wallahi ina seef noola iman lahaayeen goobaha cibaadada laakiin macaankaasaa ka luma uu ka maqan yahay wuxuu ku dayanayaa qofka waqtigiisa ciyaar ku qaadanaya waa inuu toobad keenaayo uu ku daydaa dhalinyarada maanta aynu arkayna ee waqtigoodii ku luminaya bilaa macnaha iyo macsiyada bishrul xaafi ninkii magacaa la odhan jiray oo isaguna raggaas un ka agdhowaayo ardaydoodii ka mid ahaa cabdulwaahi mubarak iyo ardaydoodii buu ahaa bishru xaafi waxaa raggii iska tuman jiray durbaanka iyo hablaha heesa iyo waxaasuu ku dhex jiray iyo kamanka iyo music iyo waxaa la garaacayo qofkana markuu ilaahay hanuuninayo qalbigiisa khayr la sheegunbuu ku dhibqiyaa yuu badnaaninba isagoo ka madaxahoo kormeeraya meeshii laga heesayay maxfalkii ayaa ninbaa soo maray culimo aqalka hortiisii inantii meesha joogtay buu ku yidhi meeshan ninka joogaa ama dadka halkan ka heesayaa miyaanay dad addoommo ahayn maya addoommo maahe waa xor bay tid maxaa addoommo ka dhigay saasaabay isu laba rogayaanoo qoobka ciyaarkaasayba ku jiraan waa runtaa buu yihi waa xor hadday inuu noqon lahaayeen addoommo ilaahay addoommaha uu yihiin bay ka xishoon lahaayeen wuu maqlayo wuu ka daba tegay ninkii oo wuu yeedho wuxuuhi bal kelmaddaa igu celi wuu ugu celiyo markaasuu halkii isaguna kabala-aantii uu xafladda kaga soo baxay unbuu hore ugu dhaqaajiyey oo ilaahay ugu toobad keenay subxaanahu wa tacaala culimadii kula xidhiidhay markii dambena zuhaadi dadkii suhdiga badnaabuu ahaa taariikhda lahaa markii la yidhi maxaad kabaha u gashan weyday bishrulxaafi waa ninkii kabaha la-aa wey magaciisa bishri baa la odhan jiray alxaafi waa ninkii kabaha la-aa wuxuu ihi markaan aan ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keenay ama markaanu ilaahay heshiinay siduu isagu leeyahy kolkaan ilaahay la heshiiyey la col baan ahaaye xaaladdan ku sugnaayoo kabala-aantii un baan sidhi taasaaba wanaagsanaha bedeli maalintii layga toobad aqbalayaan kabala-aayo tii un baan ku daystay buui markaa isaguna waxau ahaa dee runtii nin la yaab badan xagga cibaadada almuhim waxaynu ku soo ururinaynaa bushaarooyinkaasoo dhan baynu haysanaa oo qisaskaa ku sugan oo ina dhiirinaya marka qof walba macsiyo ku jiraaba fursadda maantana ha ka faa'iidaysto waana waajiba ilaahay ha u toobad keeno toobaddana ayaynaan ilaawin sidaa uu rasuulkeennii tusaalaha inoo ahaa calayhi salaatu wasalaam habeen iyo maalinba ugu celcelinaya aynu badinno waxaa jira dunuub badan oo aynu ognahay iyo qaar aynaan ogeyn intaba allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا ارحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا يا ارحم الراحمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء